badan oo ku saabsan musaamaxa ayaa jira, laakiin iga maqla qowlka. Markaad doonayso inaad wax saamaxdo ma bedeli kartid wixii hore, laakiin waan awoodnaa inaan bedelno mustaqbalka. qisadan maanta idii wada waxay ka soo jeedaa dalka Masar. khilaaf u dhaxeeya Khayr Suur iyo xaaskiisa walaalkii. khilaafaas oo kala dhex maray waxayna ahaayeen saaxiibo. bal hadhow intii sheegi doonaa bes, laakiin iyo ogolaada inaad igu yeedho saaxiib alcalaaqaha, saaxiib الدعوة أحمد محمد أبو نيف. أهلا وسهلا أحمد. ما شاء الله مدني وندوهي إيجورن وركاغا. والله ما شاء الله أديات مسافي عناي. أديك شيكada du'aad ayay u adagtahay Soomaa. sidaan ka dareemay qisada markaan akhrinayay. qisadaadan aad ayay u adagtahay. way adagtahay. أحمد wuxuu ahaa nin xaas leh, waana wada noolaayeen isagii xaaskiisu. Sayidana waxayd saaxiibkii walaalkeed. waayo isagu wuxuu leeyahay saaxiib aad ku qaaliya, waana Xamdi Amiin. xiriir aad u adag una noolaayeen sidii dad walaalaa. laakiin maalin ayaa khilaaf dhacay labadooda, Axmed iyo xaaskiisa. waa gabadhu qabe. garmaynaysa u weynaatay khilaafkoogii. kasta haddaba Axmed waa isqaban waayo, gacan u qaaday xaaskiisa. bir iyo bud waxay ahayd mooye gabadhiisii ayuu madaxa ku dhuftay. yacni wixii uu ku sameeyey xaaskiisa ilaa maanta ayaa laga daaweynayaa. waana mashaakil aad u weyn, dhibaato weyn buu u geystay, iyadoo hadda dhakhtarka ayay ku sugan tahay. goortii uu shilkaasi dhacay Axmed waxaan oran karnaa wuu baxsaday, wuu isqariyey. muddo sanada kadib ayuu soo noqday, xaaskiisuna weli dhakhtarkii ku jirtaa. uu soo noqday ugu horeyn marka ugu horeysa waxaanu naga codsaday in aan ugu yeedhno isaga saaxiibkii oo ah saydigii, si uu ugu horeyn isaga ugu raaligeliyo, ay wada hadlaan, ay wada xaliyaan. yani waa isaga walaashii Xamdi. waxay sheekada wallaahi waad dareemi kartaa qof daalan oo shaqo ka soo baxay oo lagu furay. adigu magacan baad u qaaday markaa? dabcan. oo mayna disho doonaysay markaa? maya wallaahi shaytaan baa iga xoog batay. markaa ulajeedkayguna dee sidan mu ahayn. wallaahi dee wanaagun baan ku xalinayay, oo markaa sheekadu qaraaratay dee ibni aadan baan hayo waa isqaban kari waayey. xamdina dee aniga waa nin walaalka. maya taxaaskaaga igala hadal. xamdi hadhow tolaad ka hadli doonta isaga. waayana maxay u dhacday saani? wallaahi dee runtii iyada dad isjecel baanu ahay. iyada maanta xaalkeedu waa sidee? maxay ku sugan tahay maanta? dhakhtarka sanadna ku jirtaa? wallaahi dee muddadaa sanadka ah iyada iyo carruurtayda oo ubad bay ku dhashay miyaa? 3 carruur ay dhashay, Cabdalle, Malak iyo Shaadi. oo carruurta xagee ku sugan yihiin markaa? hooyadood baa haysataa. yacni gabadhaada hooyadeed miyaa? dabcan. micnaha waa sodohda. markii uu dhibkani dhacay. laakiin iyadu weli koomay ku jirtaa, soo saas ma aha? oo ma korin karto ubadkaagii? arag. waxaanan dee doonayaa inaan is aragno reerkayga, oo aanan muddo is arag oo arrintan aan dhammayno. waxaanan doonayaa inaan ubadkayga aan dib isu aragno. wax sharciyo lagu tiigsaday miyuu jira? aan waxaan ku arkay geesinimo oo halkan telefisyoonkan iyo dadkaasoo dhan baad soo hor fadhiisatay oo doonaysa ugu horreyn aad la hadasho Xamdi oo ah saydiga gabadhaada la dhashay. arrinkaaga sharcigu muxuu ka qabaynaa? adigu se maxaad isku qarisanaa? tan waan isku qariyey, dee arrinkani faraha ayuu ka baxay, waana ku khaldanaa. taasaana kaliftay inaan dhunto oo aan ka fogaado. manaan awoodi karan inaan wajaho, waana ku khaldana taas. oo sharcigu marka adiga miyaanu ku soo qaban dhankaaga? may dee sharciga looma gudbin arrimahan. anna dee isla markiiba waan ka tegay magaalada oo dibadda ayaan ku maqnaa. halkee baad tagtay markaa? Saciida ayaan tegay, halkaasi ay dadkii u joogaan. Saciida ayaa tagtay, waan gartay. hadda laakiin waxaad u timid adigu barnaamijkan, waxaanad naga codsatay inaan kugu yeedhno Xamdi. maxaad ka oranaysaa marka Xamdi? micnaha maxaad ku dhihi doontaa adigu? yani walaashaa baan gacan u qaaday oo waxaan doonayaa inaad isaamaxdo. waxaad ku oranaysaa Xamdi? anigu waxaan doonayaa inuu isaguna isaamaxo, gabadhuna ay isaamaxdo. yacni waan ogahay wax kasta oo khaldamay ama dhacay, haddana ubad baa naga dhexeeyo. ubadkaygii ma ilaabi karo. way mise jira ubadkaagu adiga? daadood waa imisa? mid waa 9 jir, midna waa 6 jir, midna waa 3 jir. 9, 6, 3. waan gartay. xamdina ma wada hadasheeno mas aragteen? may wallaahi ismaana maqal intii mashqadan ay dhacday. iskuma dayin inaad la xidhiidho. adigu yacni ulamaad jeedin inaad saasoo dhan aad u xumayso amba aad heerkaa gaarsiiso, laakiin maxaad ula heshiin weyday reerka ood ugu dalban weyday? dhex gashay maba jirtaba oo arrintani dhammaystay oo heshiisa.
adiguna iskuma dayin marnaba may anigu markii waxaana dhaceen magaaladaba waan iskaga carray oo waan iskaga tegay maxaa dhici kara haddii aad ku tiraahdo xamdi walaal xamdi cafi waxaanan kaa doonayaa oon kaa dalbanayaa inaad reerkayga ii soo celiso oo weliba walaasha ay saamaxdo wallaahi waxaan doonay inay dhammaantoodba ay saamaxaan waayo waan is ogahay inaan khaldamay waan kuu khaldamay gabadhaydii waan kuu khaldamay ubadkaygii aniga ma garanayo laakiin waan isku dayi doonaa inaan xamdi aan keenno se laakiin meesha xumaato weyn baa taala bal aan aragno horta xamdi uma dirna anagu fariintii garamayno xamdi inuu iman doono garan maayo say noqon doonto iyo xaalkusuu noqon doonaba laakiin waan wada arki doonaa xaaladda maanta waa xaalad ka baxsan gacmaheena axmed wuxuu qabay gabadh waxaana u dhashay 3 caruura khilaaf baana labadooda soo kala dhex galay kadibna gacan ayuu qaaday xaaskiisa waxaanu ku dhuftay bir adigu bir uun madaxaanu kaga dhuftay gabadhii haddaba sanad ayay ku jirtaa dhakhtarka koomaanay ku jirta xaaladeedu isagii uu ka baxsaday magaaladii oo wuxuu tegay saciid sanad ayaanu joogay halkaas saciida haddaba maantuu yimid yacni wuxuu soo noqday oo annaga naga dalbaday inaan ugu yeedhno gabadhu qabay walaalkeed kaas oo isaga ay ahaayeen saaxiibo xamdi saaxiibo ayay ahaayeen isaga tinima ogeed walaashii buu ku daray walaashii ayuu guuriyey saaxiibkii waxaanu u yimid maanta inuu naga dalbado in uu raaligeliyo waxaanu doonayaa inuu reerkiisii soo ceshto laakiin anigu waxaan ka baqayaa hadda yani wixii dhici karaa falcelinta xamdi inay noqoto mid aad u adag bal aan wada aragno horta xamdi uu yimid waanan u yeedhnay fariintaydiina uu aqbalay laakiin isagu ma oga inuu axmed halkan joogo xamdi hadda bannaanku ayuu joogaa waxaanan doonaynaa si sharafaysan inuu ku soo galo ahlan xamdi iga waran xaalkaaga see tahay maasha allah mudane george iga waran caafimaadkaaga wallaahi maasha allah shaqooyinku way ku wanaagsan yihiin alxamdulilah maxaad ka shaqaysaanaa dhakhtarka haweenka ayaan ka shaqeeyaa anigu oo xaas miyaad leedahayna haa wiiliyo gabadh baan leeyahay wiiliyo gabadh way mise jirna da'doodu way mise jir waa 12 jir iyo 9 jir maasha allah aleeg halkay degan yihiin maqaahira qaahiray degan yihiin qaahiray degan yihiin mar labaad waan ku soo sidoo kale waad ku mahadsan tahay waanad ku mahadsan tahay imaashaad noogu timid halkan ilaahay ku daaya mudane aduse laakiin waa timid garamaysid barnaamijkan wuxuu yahay iyo waa kee yaa ku yeedhay yacni aduu sidaas micnaha markii layidhi george markiiba waan imid ilaahay ku daayo sidoo kale mudane waad mahadsan tahay markan anigu dad adigoo kale aan arko aad ayaan ugu farxaa anigu ilaahay ku daaya mudane haddaba xamdiyow anigu khayr ayaan wadaa micnaha dad ayaa aniga imanaya weliba barnaamijkan si aan ugu yeedho qof kale qof ka fog laga yaabaa ay rabaan inay is arkaan jeclaysta inay wada kulmaan ambay jeclaysta inay hadal ku dhahaan waa su'aale ugu horreyn ma doonaysaa cidda ku yeedhay bal haddaba shaashadda eeg xamdi aniga iga raalli ahow waan ogahay in arrinkani aad kuugu adag yahay cadho aad u weyna inaad qabto waan ogahay anigu taa iga raalli ahow aniga bal aan labadiina wada hadalno haye kani wuxuu ahaa saaxiibkaaga qaaliga ahaa ee axmed wuxuu ahaa saaxiibkaaga qaaliga ahaa laakiin axmed khalad weyn ayuu galay garan maayo inaad saamixi doonto maya maba saamaxay anugu kan saan u saamax anigu hadda adun bay tusay ninkan imakee waxaan kaaga mahad celinayaa inaad adigu maanta i tustay ninkan adigu laakiin hadduu aniila joogi lahaa saan yeeli lahaa waan ogahay laakiin hadday sawir tahay maya waa sawir wey run buu jooga maya waa sawir isagu u jooga halkan miyaa maya isagu halkan ma joogo meeshan ma aha meeshuu joogo laakiin meel kaleu joogaa isagu halkan lama jooga soo maaha maya halkan ma joogo
anigoon ogay sheekadu soo dhacday laakiin isaga ayaa naga dalbaday inaan adiga kugu yeedhno waayo isagu rajo ayuu kaa qabaa oo saaxiibkiisa qaaliga waan diiday anigu fiinaan lahayd inaan arko alla fiinaan lahayd inaan arko maxaad ku samaynaysaa waajibkaygan ka mari lahaa xaqa walaashay iyo xaqa aabbahay sidee micnaha sababtiisuu dhintay aabbahay isaga awgii buu dhintay aabbahay aabbahay guri walba dhibaato waa ka dhacdaa waa run way ka dhacdaa laakiin tuu isagu sameeyey mid loo dul qaadan kara maahe waan gartay oo gabadha walaasha imika halkii joogtaana dhakhtarkay ku jirtaa dhakhtarka ayay ku jirtaa way indhabeeshay xataa oo carruur yarna way haysataa waxba arki mayso laakiin iyadu koomadii ma ka baxday laakiin koomaday gashaa mar walba koomay gashaa koomay gashaa sariir ayay saarantay indhalaan baa ku dhacday waxba ma aragto wuxuu ku dhuftayna weeye ma isagaa dilay isagaa ku dhuftay wuu ogaa nabarkan wuxuu gaarsiinayay walaashay inuu ujeediyey in kale anu garan maayo laakiin anigu waan ogay sababta in isagu lahaa isagu fariin ayuu kuu soo diray waxaanu leeyahay saaxiibkayga qaaliga ahaayo abaalaawe ayaa garan waaya wanaagga saaxiibkii weligaay allahana qof wanaagsan badeed nin firiidaad ahayd aad iyo aad noo wanaagsan waana tan adiga kugu doortay adiga qadarku iyo waktiguba mararka qaarkood ayay qofka hilmaamayaan wanaaggiisa waa run wixii dhacay xumaanteeda inaan anigu lahaa shaydaan baana iga awood batay dhammaad iyo bilowba anigu waan khaldanahay alle ayuun baan khaldamin adigu waxaad tahay carruurtayda aftigood iyo saaxiibkeeba oon wanaag ka yaraysan faamilkayga tan iyo markii aan baxsaday waxaad garab taagneed ubadkayga iyo xaaskayga heer waxaan marayaa saaxiibkay inaan wejigiisa arki waayo oon indhaha siin kari waayo qof wanaaggiisa la soo koobi karana ma tihid runtii anigu saaxiib waan khaldanahay khaladkan galayna heerkii gaarsiiyena waad arkaysaa sidaasuu yidhi wax kale dooni maayo maanta oo dunida yaala aan ahayn qalbigaagu ii wanaagsanaada saaxiibkaygii noloshow dadkaasoo dhan ayaan kaaga hor codsanayaa raaligelin waan ogaya xasuusana sidaan isku hayn awal ina saamaxa khaladkan galay oon weliba adigana kaa galay iyo kan walaashaa ka galay iyo baxsadkaygaba wakhtigaad adiku ii baahnaydeen oon garan waayo wanaaggiina walmusaamax kariim ma hadli karaa isagu saanu maqalno bal isagu wuxuu leeyahay sababtoo isagu ina maqlayaa waxaan inagu isweydaarsanan uu maqlayaa axmedow waxaan jeclaan lahaa inaad soo egto xamdi aad ayuu kugu cadhaysan yahay adiga xataa aragtidaada waad aragtay adigu xaalkiisa imika se waxaan doonaya inaad la hadasho si qalbiya aad kula hadasho ood ku tiraahdo waxaad adigu dareemayso ku soo dhowow xamdi saamax saaxiibkayow waan ku khasbanaaye shaydaan ayaa iga awood batay waanad og tahay waan ku khaldamay walaasha iyo dhammaantiinba waan idigu khaldamay wallaahi qasab baana igu ahayd taas dad sidaa ku kala go-aya ma nihine ciyaalkaygii sanad maan arag adigu waxaad u cadhaysan tahay maanta walaasha anna carruurtaydii maxaan ka yeelaa xamdi waad og tahay saaxiibkaygii ku qaalisanaa adduunka inaad tahay waad og tahay weligay cid kale lamaan saaxiibin waanan ogahay wanaaggaaga iyo ka waalidkaaba ilaahay ha u naxariistee wallaahi ismaan lahayn saan baa dhacaysa laakiin shaydaan baa iga badiyey iga awood batay dhib male walaal iga raalli ahaw oo isaamax waan ku baryayaa walaal isaamax oo ii rumayso wallaahi garan maayo walaal si aan noqday wan khaldamee iga raalli ahaw anna waan gartay khaladkayga iyo xumaantii iyo gafkii aan sameeyey isaamax xamdiyow waan gartay waan ku maqalnay axmedow xamdi mararka qaar shaydaan ayaa ka dhex toosa qoysaska saaxiib iyo saaxiibkiis wiil iyo waalidkiiba shaydaan ayaa kala dhex galaa iftilaanu ka dhex oogaa iftiladina way dhacday bes laakiin hadda ma hagaajin karaynaa waa run ilaahay u naxariisto waalidka waa tegey oo ma soo noqonayo walaashana insha allah ilaahay baa daweyn doonaa ilaahay daawe ilaahay caafi aamin yaa rab haddii ay ka soo kacdo koomada oo aragtideedu ay soo noqoto micnaha halkaana ay raja taalo insha allah ilaahay caafiyo ubadkeedana ilaahay u soo celiyo adigu markaa maxaad leedahay isaga markaa aad ku oranaysaa
oo waad aragto warqadan buu ku soo qoray hadal adna maxaad ku oranaysaa anigu ma saamaxayo ma saamaxaysid ma saamaxayo anigu marnaba xiriirkiina soo celinaysaa wax kasta isku kay soo celinaya anu raali kameeyey wax kastaba lagama yaabo oo dooni maysid in stuudiyaha keeno idinkii adigu aad heshiisaan ma laga yaabo aan arko anigu isaga arka hadhow hadduu halkan joogaan arko haddaan halkan joogin ilaahay bay iga badbaadiyey mar kalaan is arki doonaan iyo isagu laakiin ma rabti inaad saamaxdo maya ma laga yaabo inaan saamaxo saan u saamaxaa ninka aabbahay dirtii u dhintay oo walaashay tii ugu yaraed reerkayaga waa taayadiin ugu yaraed weliba gacan saaray waan gartay markaad dooni maysid inuu garabkiina ahaado miya oo carruurtiisiina uu arko wabadkiisa iyo weliba walaasha oo xaaskiisa ah suu ogaada xaalkeeda muddo ugu dambaysay yaa u shaqaynaya ma isagaa wax u qabanaya ma isagaa wax qabanaya ma dhici karto yacni noloshoodu saasay ku dhammaatay miyaa isagoo saa uu ogay markii uu isqariyey weliba waa kaase sanad buu ka maqnaa sanad baanu indhamaan saarin ma arag waxaan ku leeyahay anigu meel aanan ka raadin male mayna ka habbooneen markaa wanaagga inaad ka raacdaan waxay dhaceen way dhaceen mana soo celin karno wixiina dhaafay wakhtigana dib uma celin karno dhimashada aabbaha iyo walaasha xanuunkeediyo ma laga yaabo ninkan xanuunisa inaan ku saamaxo bes laakiin ma dhici kartaa halkan iminkaan soo wada gaadhnay inaan ku sameyno xidhiidh kale cusub ma dhici kartaa aan arko awlaadda dartood aan arko isaga maya dooni maayo inuu yani xagga dhibaato ka dhacda maya shar sideeya anu adaan ku yimid way haddaan isaga anigu yeedhay iminka ballan igu qaadaysa inaad bartan ka kicin inaad dhaqaaqinba waad la hadlaysaa weliba shaashaddan idinka hor qaadaynaa ballan igu qaadaysaa haya maya bartaada ma fadhiyaysaa oo waad la hadli ku dhe markaa waxaad doonayso okay ballanku waa sharaf kursigana kama dhaqaaqi kartid haya mudane gidaar ka hor qaada haddaba ay sarkaane waa kaa saaxiibkaa waa la hadli kartaa maya ha kicin ballan baad ii qaaday inaad ka kicin kursiga fadhiiso la hadal haddaad doonayso la hadal maya inaan soo salaamo horta doonaya maya joog maya waan salaamaya maya joog waadna baabiisay waan ku dilayaa dhiiggaagaya adiga noloshaydaad baabiisay waan gartay noloshaydii dhan baad ku ciyaartay oo saa doonta aad ugu galgalatay waxaad iga dhigtay bahaloo kale waan istaahilataa intaa ka badan haddaad igu samaysa hataa raalli baan ka ahay waa goorma igu samey wax alaaliya waxaad doonto xaq baad igu leedahay la hadal xamdi maqal maya khalaas ma awood anigu kan horta la hadal hortayda maxaa yeede waatan shaashadii dima horta halo waa idinka hor qaadnay shaashadii la hadal miyaad u soo celinaysaa indhaheeda wariye ma siinaysa adigu indhahaaga waan siinayaa indhahayga itusaad indhaha ku siinaysa bal xamdi labadaada indhood ma soo saaraysaa labadaada indhood ee sheegtee may siinaysaa indhahaaga raalli baan ka ahay anigu wallaahi waan ogahay xaalkaad ku sugan tahay mudane george bad khalaas anigu intaan ka badan ma sii joogi karayo waan iska tegayaa anigu cadhada ku haysoo dhan iska soo wada saar wuu kula hadlayaa la hadal adigu isaga wada hadla labadiinu waayo idinku cadhada idigu jirta ayaad ka soo saaraysaan waan gartay idigu waxaad tihiin dad fiican waayo isagu ulajeedkiisa ma ahayn ninkan waayo isagu in heerkan gaadhayso muu moodeen ninay naagtiina badanaa way dhacdaa inay dhibaata kala dhex marto aniga maaha inaan saamaxo maya ma saamaxay aniga maaha inaan saamaxo naawilaya isagu adiga ayuu ku naawilaya waayo wuxuu dareemayaa inay walaaltinimad iga dhexayso khalad weynna uu galay khalad weyn ayuu ka galay walaasha waana ogsoonahay taa waad la socotaa
walaalada yaasir walaalka fiinaan leeda anu yaasir baan ka bartay walaaltinimada walaalka laakiin saaxiibkay ah sidaadoo kalena ma aha habay markuu walaaladii dilo ayuu yidhaahdaa ha dilina daaya waa ku sidra adigu maxaad wax uga baran weyday wuu ii waaniyaa hataa sida wanaagga la ii soo dhaweeyo anuu isagan wanaagga ka bartay waan ogay walaal inaan khaldamay anigu aniga walaalka meel ku wada nooleen baa wax ka bartay adoo la jooga maxaad wax uga baran qalad weyday waa dhaca laakiin saa kusii jirna ma aha ii sheeg labadaad indhood ma siinaysaa haa waan siinayaa weliba carruurtay darteed waan siinayaa indhahayga oo maad ayaga dartood wax u sameeyey muddo intay leeg baad ka maqan tahay bal shaydaan ayaa iga inteed ka maqan tahay ii sanad sheeg baan ka maqanahay weli ma aragtay carruurtaada mid ka mid ah maya ma arag wiilkaaga cabdalle markuu yimaad yidhahdaa baahimi uu dhoofay baan idhahdaa hooyada abuta waa u keenaya anigu ma awoodo inaan ku soo wajaho adiga xamsa maad ayaga dartood wax u sameeyey muddo intay leeg baad ka maqan tahay bal shaydaan ayaa iga inteed ka maqan tahay ii sanad sheeg baan ka maqanahay weli ma aragtay carruurtaada mid ka mid ah maya ma arag wiilkaaga cabdalle markuu yimaad yidhahdaa baahimi uu dhoofay baan idhahdaa hooyada abuta waa u keenaya anigu ma awoodo inaan ku soo wajaho adiga xamsa ma awoodin da anigu waxaan sameeyey anigu waan ogahay anigu taa wax yar ma ahayn waan awoodaa imika inaan ag istaago on garab istaago carruurtaydii anaan awoodin inaan walaashii garab istaago horiye umadaa u tagay imika xaaskaaga miyaana xaaskayga ahayn haddaa maxaad uga baxsatay maan awoodin inaan aniga ku eed wajaho. wajahdo haa haddaan aniga ii wajahay gabadhaad ugu waan tagi tagaya adigu gabadhayda maxaad u baxsatay haddaba ii sheeg waxaad u baxsatay haddaanad anigii soo wajahin gabadhaada maxaad uga baxsatay maxaad isla qarisaynaa maxaad u garab istaag galo idinka doodiina wax yar wuxuu sameeyey wey laakiin isagu barnaamijkan buu yimid waxaanu soo hor istaagay malaayiin qof hortooda oo daawanaya hadda stuudiyaha ilaa waxaa jooga 300 oo qof waxaanu yimid uu dembigiisa qirto uu adigina ku raali geliyo kalsooni buu kugu qabaa weliba adiga qofka keliya xalka keeni karaya inaad adiga tahay marka haddaad adigu xalkan aad xallin karayso xamdiyow la hadal isaga xal raadiya wuxuu leeyahay 3 carruura ood abti u tahay adigu xaaskiisii oo iyaduna tacbaana waxaanu ku yidhi hataa indhahaygan u saaraya anigu marka ka fakir adigu weliba go-aanku gacmahaagu ku jira adigu walaalkii weynaa baa tahay adaana xalin kaliya mushkiladan go-aanku gacmahaagu ku jira waxaanad naga codsatay inaad aragto gidaarkii ayaad iga hor qaadnay oo waa kaasoo hadda uu ku hor fadhiyaa xalkeen marka adigu waa ugu horreyna ilaahay baan ugu mahadnaqaya mudana georgio waxaad sabab u noqotay inaad iiga soo saarto cadhadii iyo heqdigii ku jira aniga taasi waa midda labaadna ismaan lahayn yacni waad kacaysaa adoo iiga joojiyey kicitaanka hadalkaagina waan yaraystay markaad igu tiri fadhiiso waan kacay oo kugu gacan saadhaytaa laakiin taasi waa mid aniga cadhadayda iga saaraysay bay ahayd maan moodin anigu hore iyo gadaalba laakiin tan anigu hore isku arki lahayn aniga isagu wax ka weyn baa dhanka kala dhexdhexlaan waan gartay alxamdulilah anigu wax go-aana ma gaadhi karayo oo arrinku gacmahayga kuma jiro waan ogahay anigu se waan awoodaa waa haddaan awoodo innaga inaan cafiyo weliba aniga dhankayga maxaan odhan karaa ulmusaamax kariim laakiin dhanka miskiinaddan uu dulmay uu dilay anigu ma xukumi karaya taa waa runtaa alla way karasiin karaa hadal wanaagsan inaan dhaho xaq weliba isagu lahaa aanu istaahilin inaan walaashay ku dhaho inaan ku dhaho cafi taa naftayda dulma anigu waan gartay waa soo martaa qof waloo insaanaba taasi ciyaalna waa joogaan xaaskiina waa nooshahay weli waa joogtaa oo aabbihiina waa kan waa isagii wuu ku khasban yahay inuu ogaado ubadkiisa iyo xaaskiisa uu mas-uuliyadda adiga kaa dulqaado kana waa saaxiibkii noloshaada marka adigu xal walaalkay xalliso arrinkan wayna dhacday ismuun lahayn way dhacaysaa ka soo qaad qadar alloo dhacay hadduu allana garansiiyo mudane ilaahay khayrna haydi siiyo walmusaamax kariim maaha adiga saamaxaadu
adigu cadhadaada iyo arrimihiina kala wad saamixi kartaa laakiin marwadu iyadu wayna saamaxdaa iyaduna haddii awoodi karto insha allah laakiin adigu ma soo ceshanaysaan cilaaqaadkii labadiina idiga dhexeeyey ma iska dhufan doontaan musiibada inta soo aafaysay diyaar moo tahay insha allah almusaamax kariim المسامح كريم والمسامح كريم Stop.